dhalawey wuxuu ka xuyay Soomaaliland horumarkeeda doorashadeeda qolka yar ee luuqa lagu qabanayay lacagta la kala qaadanayo moodaya wartan shacabka codeeyo qof walba nafsadiisu codeeyayo aga xiran maarta waxaad simkaga soo bixi lahayn bal qabtaa inaad Soomaaliland iyo badeeda ka dhamo wasiirka hadalkiisa wax marka hadal iska hadlayday waayo qofku hadii uu waxa uu ku hadlayaa wax sax iyo wax isqaladaan oo kala garanay qof iska hadlay baan ugu arkaa waxa يعني أفهمه نبضنا ويكاك حيسا ولادنا كم جالسوا مركب حويا نك هذا كصير وحنا فاكر جريمة هذا كصير وهذا الإسكيري حويا حمر موضح حكومان حمر والله يوسف حسن علي برنا مدير كسر وين يحكودين سؤال فرصة وارتا هذا الذي كصير ويصير كأرماد بيت الصومالية وهاي نوري سومالان وطن تيرا معها وحنو أركا هذا الإسكيري بانو أركا markii hore 60kii waynu u tagnay inagoo dawlad jirta baynu u tagnay oo dhameystiran oo jabada qurma ka dhaxaysay meelo badan la inaga ictiraafay markii dambana inaga soo soo noqonay 18kii May baan dib loo soo noqonay 19kii inaynu qarnimadana dib loo soo noqono marka ma baahnin maanta qof inay yiraahdo wax jira ma tidin iyo waxyaabaha ma baahnin ba sideenaynu isugu filannahayba waan isku filannahayba لما رفر واحد كمان صوب إلى تشتك طبقة حقنا مدحتوه وشوكت حقنا قرن كوشوكت أنت زي حكومان سوق بكارة ما حكومان بعدو حمروينا ما حكومان الدلة كده ما حكومان أفجو أجس كنترول أفجو ما حكومان أجس كنترول بعد ما حكومان مقالة قبل كده بقى ما هو حكومان بس تدوي توان كدقمو لا بدك بيك حكومان ما سيد دقمك حكومان أول بدك موين كير بيرك هراي يراه مركا إنه ما حمران وضع حكومي إنك إنما مثلوا وحنا ما أوران كرو وعلى ليه وحنا وحباقي وهذا اللي سكيري ويقول عشان يحلك اسمه يقول عشان يا أدوه ولا مركي واحد ما قاعد يتابع على العدل أنا مريم كسروني سؤال شو حكارنسا صدرت هذا الذي كسر يصير كأرماد بيت الصومالية وهاي الصومال لم كش جوتنا ما راح تكترين أمان طالعين waxaan leeyahay tan talakaaga ma baahnaa taada ka tasho wasiirka hadalkan faray wax weeye waa xamar ka warantaa qaraxyada ka dhacaya iyo nabadgelyada ayaa lagu xil saaray iyada hawlaheeda marka wax weeye Puntland iyo Jubaland buu xukum kari lahayn kale oo Soomaaliya ka tirsan door socod iyo qof isku raaci kari lahayn qof markaas gabadhaysan cid kale wax ka sheego waxaan u arkaa qof xumata shiil oo wanaaga Soomaaliland ka muuqda oo arkaya caalamku inuu ku hambalyeynayaan doorashada si nabadgelyada u dhacday bilaa boobka u dhacday bilaa buuqa u dhacday qanacsan yahay haweeney si saarnayd ma sha Allah alxamdulillah rabbil caalamiin aad doon soo dhaweynaya nacabkana waxaan leeyahay Allah ha jabiyo Soomaaliland waxaan leeyahay walaalo soo tashateen halka ka sii wada jir wada doorashadana cidii lagu dhawaaqaba si sharaf leh inuu qanacdo loo kala qaato isu hambaliyo saasan ku bogaad burda miriyan ku soo dhaweeyay walaal su'aal baan ku weydiinay Faransa sadarta hadalladii ka soo yeedhay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya anigu ka horta markii hore wasiir ma arko waxaan arko qof xuma iska hadlayo gabigiisu wuxuu la joogaa maan garanay sidana lama dhayo wasiir futal dhaha hadda ragaas ugu sheegay wasiir futal dhaha in laga bilaabo marka wasiir hasba lama joogaa hadalku ka tigma ku yaadar hatta wax ka bedeli karin meesii xamil quraada waxa weeyaan marka ka tawadla ka soo meesii baan leeyahay ma garatay marka hadalku ka tigma leeyahay ka tigma دوا فيصل عمر يوسف الله فيصل ولا برا ميريا كوسو دوينيا سؤال waxa Faransa sadarta hadalladii ka soo yeedhay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ee hayn Soomaaliland aflagaadiyo horta waan soo dhaweynayaa aad iyo aad baan idin salaamayaa hadalka wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ka soo yeedhay wuxuu hadal aad iyo aad runtii aan ahayn hadal mas'uul weyn ku hadlo wuxuu hadal qof maaragtay aad moodaysid inaan weliga xil qaban jirin oo ku hadlay waxa filayaa dadka Soomaaliyeed inaan waxa la qabin way waban maqlay dadka hadlayo arrinka dhaleecaynaya marka waxaan lahaa ninkaas ma markii ugu horeysay hadallo noocaas ka soo yeedhaan waa hadallo iska bartay ninka waxaan oran lahaa inuu hadlaa sidii qof weyn duu doonana uu iska daayo laakiin ninkaasi kulay waxay la tahay inaan ahayn mas'uul weyn hadal ni weyn aan ahayn hadalkaas protein shacabka Soomaaliland ay dhibaato u geysan karaan yani hadalladiis wax Soomaaliland wax saameyn kuma yeelanayaan laakiin waa hadal oo maartay isagoo afkiisa iskaga xumeeyay asba wax alaaliyo shacabka reer Soomaaliland u yeeri kara ma jiro balay waxa bay ka sii qaadayaan isku duubnaan iyo midnimo aad iyo aad baan idin salaamayaa Faransa sadarta hadalladii ka soo yeedhay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo hayn Soomaaliland ku sheegay wadan aan Soomaaliya ka madax banaanayn
dee horta soomaaliya ilaa iyo 60kii markaynu dib isugu noqonnay iyo markii dambe aynu goonigoostka qaadanayba saasaynugu ahayd oo wayna sudhnayd ilaahay bayna daba dhigay marka annagu waxaan leenahay lugooyadii hore ayaan u taaglaana mid dambe taaguma hayna wasiirkana waxaan leeyahay odagaaga arab daarta kalaalo iska garanayso inta ay gaarsiintay hadda ma asanta bilaabaya wala wadhow maxamed xuseen jibriil baa leedahay dhammiyan walaal ku soo su'aashan waxay ku oranaysaa soo arka hadaladii ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo ahaa inuu Soomaaliland ku sheego wadan ka madax banaanay Soomaaliya ama meel aan jirin ba waxa aad looga xumaado weeyaan Soomaaliya waynu kala dhamaanay awalada laba dawladood oo wax kala madax banaan bayna hayeen oo isku biiray markii dambana waynu kala tagnay marka waxa hadal aad u xun ayuu ahaa oo caadey fareysan xumaanimo marka ay ku jirto aad baan uga xunnahay isaga iyo waxa weeyaan dawladda Soomaaliya hadaladiis wax saameyn ku yeelan karaan shacabka Soomaaliland may wax laga ku yeelan karaa ma jiraan awba Soomaaliland shacabkeedu way ogyihiin dawladdaas inay cadow la tahay marka haba yaraatay waxay ku saameyn ku yeelan karayaan ma jirto aad saad u aragtaa hadaladii xalay ka soo yidhi wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo ahaa inuu Soomaaliland ku sheego wadan Soomaaliya ka mid ah ama aan jirinba waxaanu leenahay ninkaana soo doontay gardarru noogu yimi waxa weeyaan waxay la wareegaalaysanaysa xamar weli lama sheegin laakiinse waxa weeyaan hadday sidoo u dhaqaaqaan waanu iska celinaynaa soomaad garan si fiican baanu iska celinaynaa xamar ma garatay xaasidiin mooyaane wax kalena ka sheekayn maayaan soomaad garan haddii qarbi daba socdo harbigiiyo iyagaba waanu la hadlaynaa marka hore marka dambena si cad baanu iska celinaynaa xamar oo sida waxa weeyaan Soomaaliland ha noolaato kii hore maantana waa in adeerkaanu ku soo dhawaynaynaa annagu ciidankaanu nahay militariga waxaanu leenahay war kursiga ayaa la kala tiidane kii helow ha loogu duceeyo wasalaamu calaykum barakaatu magacayga waxa la maxamed dhuux abdilaahi waa afayeenka ummadda Soomaaliyeed waxaan ku weydiinay walaal su'aal faranta soo arka hadaladii xalay ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo ahaa inuu Soomaaliland ku tilmaamo meel aan jirin ama aan ka madax banaanayn Soomaaliya wasiir magaranaysa xorriyadiisa marka waxaan leeyahay adeero qaraxyada waddankaaga waa al-shabaab istaadiga amisom ku ilaalsan waxna naga sheegi anaga waxba naga sheegto waxna doorashada kama qaban kartid Soomaaliland nabar haday doorashada nabad u dhacday ixtiraaf barateynina wax saameyn ku yeelan karaan shacabka Soomaaliland may wax alla wax saameyn ugu lahayd maayo xasan sheekhna waxa leeyahay naga qabsay eedaadan qof leeyahay saga qabsadee naga qabsan leeyahay كير دورك ولا الكاميرا سويت ولا magaca ku bilaabaya darashada magaca maxamed salmaan cabdi abdi koran la yiraahdaa salaano ku soo dhawey buurda media weydiinaya su'aal ka horanaysa sadarta hadalada ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo ahaa inuu Soomaaliland ku tilmaamay meel waxba kama jiraan ama si aan wadan hayna ama Soomaaliya aan ka madax banaanayn inaadeer doorasho wax ku qaraxsanahay haddaan hor socon wadan waan soo saaray may su'aash waxay ka horanaysaa hadaladii ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo ahaa inuu Soomaaliland ku tilmaamay meel waxba ka jirin ama Soomaaliya kamida saad aragtaa Soomaaliya ma arkaro ma garatay Soomaaliland dhaladaan nahay ma garatay waxaan leenahay madaxweynaha maanta aan saaray Soomaaliland ku xukumo wadanka cadaaladda way dhamaatay dad ma san Soomaaliland ma arkaro Soomaaliya ha wata xabad u dhacaysay ma arkaro Soomaaliya waxaan leenahay ciro in adeer cadaaladda ku xukumo Soomaaliland ha hayna gudbinin rakanayo ugu dhamanin way dhamaatay soo dhawr magaca ku bilaabaya aadan baa la yiraahdaa aadana buurda media ku soo dhaweynaya su'aasha waxay ka oranaysaa saad u aragtaa hadaladii ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo ahaa inuu Soomaaliland ku tilmaamo meel aan Soomaaliya ka madax banaanayn ama aan wadan caadi ahayn kii Soomaaliya hadalkaas waxa weeye Soomaalidu waligeeba reer xamar koonfurku waligeeba Soomaaliland lidib ku ahaa waxaasna waxaynu dibadda uga baxay ugu guulaysanay marka nin iska hadlay baan diyaar ugu arkaa hadalkiisa wax saameyn Soomaaliland ma yeelan karaa Allah wuxuu ku yeelan karaa ma jirto waxa weeye Soomaaliland way hana qaaday doorashadii saddexaad baa ka dhacday nabadgelyo noogu dhacday ilaahay baanu mahadinaynaa waxba naga qaadi kartid waxba naga qaadi karo anagu Soomaaliland baan la yiraahdaa kii dawladdu xooga weyneed si aad barna waa ka guulaysanay ilaahna waa nooga hiiliyay dalkayga anaga ka masuula kii soo baxana hadda anagu waa ku qanacsanahay
tahay waana salaamayna ahlan wa sahlan aad baad mahadsantahay walaad magacaaga ku bilaabaya walaal waan dhowahay magacaydu mukhtaar cawil mukhtaar waxaan ku weydiinayaa su'aal ka horreynaysa hadalladii ka soo yeedhay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo ahaa inuu Soomaaliland ku tilmaamo meel aan waxba ka jirin ama Soomaaliya aan ka madax bannaanayn sida arkaa waxa weeyaan daawil horeba waxa iyo wax la mid ah way oran jireen mardaweynta oran jireen walaale ma aha wax sidaa u sii weyn waxnayna ma yeelayaan oo walidood ba intan way lahaayeen waxnayna ma qaadi jirin waxa weeyaan intoodii hore marda waxba qiimo ma soo tirinayso saameeyna ma yeelan kartaa hadalkaas saameeyna ma yeelanayso waxaan leeyahay umadiina waxaan wax dhaamo u sheeda waxaan 100 sano u sheedaysana waad u daasheen waxaan wax dhaamo u sheeda waan leeyahay